daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Hiil Walaal u daneeyaha dadka jilicsan. qiyamka iyo dhadhanka noloshu waa mid ku xidhan ku qanacsanaanta nafta dabaqad kasta uu qofku nolosha ka joogo. Somaliland dhexdeeda waxaa ku nool boqolaal qof oo isugu jira dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba leh kuwaas oo aan iyagu ku soo barbaarin jacaylkii waalidnimo. taa beddelkeedana u noolaa maalin dhacsigooda oo sax iyo khaladba ay u sameynayaan sidii naftoodu u noolaan lahayd. iska daa qurux xarago waxbarasho guur iyo macaanka kale ee nolosha iyagu waa kuwo deris la ah nolol hooseysa oo aan ahayn haba yaraatee dhaldhalaalka ay ku jiraan kumanaafilkooda ah. badiba ma haystaan hooy ay ku noolaadaan, ma haystaan nolol ididiilo iyo rajo leh, mana haystaan cid iyo ciirsi ay tirsadaan aan ka ahayn Allah. waxay u hoydaan dooxyada iyo meelaha kale ee u dhigma, waxay huwadaan cirka, waxayna gogladaan dhulka. noloshooduna waa marna qad marna quudo, magacooduna waa darbi jiif. duruufta iyo waayaha ayaana magacan hoos keenay. ha yeeshee waxay qanaaco buuxda ku yihiin nolosha kacakufka ay ku soo barbaareen, kaasoo hamigooduna yahay inay marun ka bixi doonaan dhibta iyo rafaadka adduunyo. way adag tahay inay helaan goobo caafimaad oo xaalkooda ay kaga warhayaan amaba ay miciin bidaan marka ay xanuunsadaan ama nabarra soo gaadho, maadaama aanay haysanin qarash ama lacag ay iskaga kafeeyaan. haweenka derbi jiifta iyagu noloshan ku jira waa kuwa ugu jilicsan marka loo eego wiilasha derbi jiifta. waqtiyada umulaha way adag tahay inay goobo caafimaad ku umulaan. waxay qaarkood ku dhalaan suuqyada dhexdooda oo rafaad iyo dhibaatooyin badan ay ku maraan. guud ahaan nolosha derbi jiifta ayaa ah mid takoora oo aada u hooseysa, mana aha mid ay cidi door bido ee waa mid waayaha iyo duruufuhu sababeen. toddobaadkan barnaamijka Hiil Walaal oo isagu u cimaamatay ka warhaynta iyo taageeridda dadka jilicsan, dadka la hagrada iyo dadka dulman, waxa uu dheega saarayaa nolosha derbi jiifta oo ay dhalinyaro badan ku garaadsadeen xalna uga dhigeen maaraynta noloshooda. waxaanu dooxa weyn ee magaalada Hargeysa subaxnimo hore kula kulanay Xuseen Mandela oo isagu ilaa yaraantii noloshiisa ku soo qaatay derbi jiifnimo iyo kalinimo. waqtiga adagina saaxiib kala dhigay balwadaha kala duwan ee maanka dooriya. Xuseen waxa uu soo maray rafaadka iyo qadhaadhka nololeed, mana helin jacayl waalidnimo maadaama hooyadii aanu nolosheeda ku garaadsan. jirkiisu waxa uu saaxiib la noqday jugaha iyo nabarada oo waqti xaadirkan aanu waxba u aragin naftiisa nabar ku dhaco ama uu ku yaalaba. Xuseen waa abwaan curiyo geeraro iyo gabayo ka turjumaya nolosha derbi jiifta iyo sida loo dayacay. mar kalena waa fanaan qaada heesa uu erayadooda isagu curiyey iyo qaar abwaaniin kala curiyeen oo hore loo qaadayba. ha yeeshee waa abwaan iyo fanaan aan cidina qiimayn. waa hal abuur hiil waaye, waa geesi god ku jira, waana waaye arag nololeed oo qiimaha nolosha garanaya, mana aha mid ka rajo dhigay nolosha iyo macaankeeda. waxa uu naawilayaa naruro iyo samaan, waxbarasho iyo nolol sare oo marun uu ku ilaawo rafaadka nololeed ee noloshiisa dabray. wuxuuna hiil ka sugayaa walaalihiisa Soomaaliyeed. waqti xaadirkan waa afayeenka ku hadla codka derbi jiifta. raadin badan iyo baadhitaan waqti qaatay oonu u galnay sidii aanu Xuseen Mandela u horkeeni lahayn barnaamijka Hiil Walaal. ayaanu subax hore dul istaagnay isagoo hurda dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. wada sheekaysigiina dhex marayna halkan ayuu si toosa uga bilaabmay. حسين 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 ها السلام عليكم. وعنت ولا والله ما لا فرجينا كاتشوس كاتشيلا لا عاد محمد والله سات اي والله وعنت ولا عندي اي halkan saxta walaal سمعنا حسين مانديلا halkan suurada wada aragtaa waa dooxii magaalada Hargeysa. sad walaal halkan noloshaada ugu aamintay? walaal nolosheeda waxaan ugu aaminay suuqyadii aan seexan jirnay
walaal gaadhar baa ilaaliya lacag ku qaata markaasaa darteed mid ku darso walaalo ciyaal xaafadkii ayaa iyakana dhibaato nagu haya oo tirdiid nagu sameynaya markaasaa darteed walaal ammaan darra ayaanu imanay halkaasaad imika waa salaad hore waad soo kacay marka sanoo kale usoo kacdo xaggaad quraac doontaa walaal meel aan quraac doontaa ma jirto walaalo xambooyinkaan marmar doonanaa 2 maalmood haddaan doono baan qabnaa maanta ka waran haddaynu israacno oo aan soo wada quraacno walaal waa caadi haddaad ilaahay darta quraaciga bixinayso hayna mari aan ku galay walaal namar محيداً تعيش وينو وغاديو يغلاغيو تكون ذوق موديان محاتر عقيل هبادو كتير يوغون يدوغادو نكيلها toostay quraacnay waraysiga iska bilaabanay halkaan jeceshiina waraysiga kaaga qaado waraysiga halkii aan hooygayga yahay ayaan jecelahay halkii aan kaga qaadan halkii baan qabanaynaa imika daawadayaal halkani ma aha guri manaha hotel waa dooxa weyn ee magaalada Hargeysa way adag tahay inay dad halkan ku noolaadaan ha yeeshee Xuseen Mandela iyo waliba xirtiisa asxaabta uu darbi chiefka afayeenka u yahay iyagu halkan bay ku nooliyeen Xuseen koofiyadii iyo kabihii labadaba wad ku seexatay waan gartay iyagu culays meen kugu hayn marka seexanayso ma culays kuma hayaano marka xiliyaha dhaxantu xiliyada dambe soo dhacaan waqtiyada halka aan seexanano kale ayaan ka dugsanaa oo ay waxa noo yihiin bustihii bay noo yihiin iyo gu'i waa dugsataa marka waan dugsanaa hoostaan ka galnaa jiir baan iska dhignaa Xuseen muddo dheer baad ka soo mid ahayd darbi chiefta Soomaaliland waayo badan baad soo martay goorma ayuu Xuseen ku soo biiray darbi chiefta Soomaaliland waxaan darbi chiefka noqday 2001 ayaan noqday darbi chiefnimada ku soo biiray waxa igu kalifay inaan ku soo biiro duruufo kala duwan oo nolosha ah oo qoyska ah marka intaad leekeed markaad ku soo biirtay waxaan leekaa ilaa waxaan leekaa 10 jir baan leekaa markaan reerka ka soo cararay maxay ahayd mushkiladii u weyneed ee kugu kaliftay inaad noqoto darbi chief waxa igu kalifay inaan noqdo darbi chief hooyaday way dhamatay aabahayna waa ideeriyay aayaday aabbo ayaa igu xumaatay marka maadaama igu xumaatay aayada aabbo waxay tiri 2 mir soo kala door Axmedow inaan aniga warqadeeda isiiso iyo inaad inanka yar iriido Axmed waa aabahay marka wuxuu yiri adiga orideedii baabato waan ku jecelahay isaga irinaya waradooda baalish qaado oo gal magaalada sidii baan gal magaalada oo baalish ku qaatay oo sigaarkii bartay oo daroogadii bartay oo aan nooc bartay
adoo intee leeg bay hooyada dhimatay aniga waxay dhimatay anoo naqiisa oo naas ka shaqeeya ma garanayo hooyadii habyartay baa soo korsatay ilaa 10 jir markay soo leekaysiisay ayaa habyartay magaalada iska gashay way tahriibtay dabadeed hadal lagama hadal dhimatay aan noolaatay intii aad ku jirtay derbi jiifka waayo badan baad soo martay bal ka waran maraaxilkii kala duwanaa ee aad soo martay intii aad ku jirtay derbi jiifta Soomaaliland waxaan ku jiray muddo badan wallahi dhibaatooyin aqbada ah ayaan la kulmi jiray maalin walba kuwa saaxiibadaya waxay la kulmi jireen nolosha oo cadaadis ku ah oo iyo taxaddi u dheer ayuu wallahi walaal ku kulmi jireen waxa weeyaan duruufihii iyo kala duwanaa ee nolosha ah sida dhaxamaha sida hoteelada hambooyinka aan ka qaadanayna gumeysiga nagu haya iyo taxaddiga nagu haya soo fahmin sida saldiyada marka lagu xiro cid naga daba timaaday cid noo timaada oo ama cunno noo keenta habeeraatay walaal ma jirto adigu ka xuseen ahaan noloshaada intii ugu badneed halkaad ku soo tiirsanay waxaan ku tiirsanaa walaal anigu muddada badan ee 19 sanadood gaaraysa nolosheeda waxaan ku nolosheeda aan ku meelmarin in aan baalashada noqdo ama aan noqdo gaari meedis ama aan noqdo Allahumma salli wa sallim alayhi biraha dhulalka doxyada laga urursado markuu roobku soo doo ayaan iibin jiray ka bacdi nolosheeda ayaan ku soo saari jiray maalin barnooc Xuseenow inta aad derbi jiifka ahayd bal hal iyo laba hadii aad ka xasuusto dhacdooyinkii kuugu xumaa ee ku soo mara walaal dhacdooyin baa soo maray oo dhinaca nolosha aniga dhaawacayga ah marka walaal 2000 iyo walaal 5 ayaa liiga galiyay wadnaha midi toori wadnaha liiga galiyay marka dhaqaatiirtii la iigeeyay iyo neerastii la iigeeyay way iga weysistay walaal maadaama walaal dhaqaatiirtii iga weysistayna nabarkayga wuxuu noqday nabar aad u weyn oo bukaan badan maalinkii midida la iigeliyo kooman galay koomada hal maalin baan ku jiray kamana soo bixin maalin labaadkii baan ka soo baxay xitaa leeyma tulin oo dhaqaatiirtu ma tulin waxa lagu dhintay cudbi ka bacdi waxa la yiri nabarkan lama dhayi karo wadnuhu gaadhay de akhru leey oo dhimanaya ama uu noolaan dhaqaatiirtii markaas ay go'aan ku gaadheen ka bacdi cudbi baa lagu dhintay ilaahay baa tala saarkii aan tala saartay ka bacdi nabarku bogsaday dar Allah yeesu bogsaday dhibaatada dhaawaca igu badnaan muddo badan buu xanuunay nabarku maalin buu kacdoon igu soo ilaa aalaanka kacdoon buu igu yeeshaa Xuseenow derbi jiifta kaliya matid yar baa ah oo aad u yar haween baa ah haween yar baa ah bal ka waran iyaga noloshooda kuwa iyaga noloshoodu waxay tahay haweenka laftigoogu waxa ku imanaya taxaddi dhinaca bilaadanimada ama kubsiga oo kale ama har raacdo inan intii xabag cabti duruqyada Hargeysa maraysa inan ciyaal xaafad degan gurigii hooyadii mabadii gurigii hooyadii degan oo soo dhargay ama dariiqa maraya ama xaafad dhex socda ama suuqa ahaatay inan xabag cabisa mabadeen karaba bal ka waran dumar hablaha soo kale habla badan oo suuqa ku dhalaa jira bal ka waran markay umulayaan oo kale sidoo xalku noqdaa umulisada dhaqaatiir umulisa ama dhakhtarka ama xanaanado kale lama geeyaba xagee ku umulaa waxa la geeyaa meel gabadh islaana ayaa jirta oo istaad house-ka degan ama daamiyo kale laba garbood weeyana oo islaam ah oo dumarka ka dhaliya marka waxa weeyaan gabadhan darbitiifka maalintii ay uur yeelato ay umushii u soo dhowdahay gabadhaas ka foolin ka dhalisa ka bacdi saasay ilmihi soo dhashaa Xuseenow dhaqaatiirna lama geeyo caafimaadna lama geeyo Xuseenow bal marka jeelka leedo ku xiro kala ka waran noloshu sayid ku noqotaa ilaa cid ka daba timaada ma jirtay way noloshu waxay nagu noqotaa wallahi nolol aad u qiiro badan maalinkaas saldhiga ku xidhnaado bariiska maxaabiista loo keeno ayaanu markay cunaan dhulka ka fadhiisanaa aan cunaa ka bacdi marka maxaabiista aan inahnana siiyana maxaabiistu anagay dib noo yasan oo yiraahdaan naga taga wad usga badantiina Xuseenow way arag baad nolosha u tahay qaraad badan iyo culaysyo badan ba nolosha ka soo martay maanta markaad isqiimeyso maxaad isleedahay Xuseen ahaan wad ku fiican tahay wad ku haboon tahay ama wad qaban karaysaa walaal anigu waxaan qaban karayaa maadaama oon de imika afayeenkii guud ee Soomaaliland aan ahay derbi jiifka muwaadin reer Soomaaliland oo xuquuq iyo xaq u leh Soomaaliland aan ahay adduunyahana ay maqlayaan inta ay daawanayso iyo magacayga muuqayga taqaana rajada iyo himiladaan doonaya waxay tahay
waayo dhulkan iyo ciidan annagaa u dhalanay reer somalilan baanay walaal xuquuqdayadii ayaa walaal la lumiyeeyo meel lagu laalay ma fahantay cid baa noo soo dhaga adeegi weyday cid baa noo soo joogsan weyday walaal in wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada kale waa wasaaradda ka tirsantiin hoos timaadaan balka wariyada mucaawino iyo taakulayn iyo garab istaag ma ka heshaan walaal wasaaradda haweenka iyo shaqagelinta iyo arrimaha bulshada wax gargaara ama wax gacan qabasho ah walaal kama helno waayo waa wasaaradda ay nagu qosaysay talabaad waxa meeshii ku jirta shaqaalihii wasaaraddu waxay bilaabeen sida ay sayaan darbitiifka waxay bilaabeen shaqaale ama wasiiradda ama agaasimaha guud ama agaasimo waaxid ha noqdee markaan u imano in qofkan bil'aamiga rabbiga abuuray ee laa ilaaha illa allah ku ashaadanay damiir kale ilaahay karaameeyay inay yeesayaan xuseen adigu waxaad ka mid ahayd dhalinyaro darbitiifa oo la xirxiray oo madheere la geeyay balka war xarigaaga walaal xarigaygu saameyn xanuun badan buu igu yeeshay waxaan leeyahay gaastari waxaan leeyahay qanjo xanuun waxaan leeyahay gariir waxa weeyaan xanuunkaygu aad iyo aad buu fara badan yahay kaliya xanuunka laftigiisa bbcda ma ka sheegayo waa mar awstameeraad baan isticmaalaa wallaahi ilaahay subxaana wa tacaala dee mar walba ilaahay baan baryaa xanuunkaygu maalinba maalinkan xanuunsado dee ilaahay baan leeyahay dhakhaatiir iyo dhakhtar neerasa oo aan tagaa haba yaraatee ma jirto meel walba waxay doonaysaa lacagtiina ma hayo waxaan iskaga gaafiyo markaan sakaraad ka noqdo ilaahay baan baryaa waxaan idhaahdaa ilaahow tasaa'irkiisa ilaahow caafimaad khayrka ugu bedel waayo dad kaloo caafimaad ayaa jira dad kaloo xanuunsanayaa jira aniguna kiisa waxba ma haysto miskiin bana wasiir hindegaani wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshadu watii xabsiga idin dhigtay balka wariyada ma saamaxdeen walaal hindegaani waxaan ku saamixi weynay hindegaani annaga waxa weeyaan madaxweynaha qaranka somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa walaal hindegaani wasaaradda keenay hindegaani annaga madaxweynuhu arrinkayada waxba kama oga hindegaani ayaa wax ka og hindegaani si khiyaamnimo oo aan daacadnimo ku jirin ayay annaga darbitiifka nooloo shaqaynaysaa matarkii miisaaniyadda qarankana lagu talagalayna meel ay marisay lama hayo marka waxa weeyaan mas'uuliyaddii iyo dadnimadii iyo alla ka cabsigii iimaankii qoyanaa ayaa walaal laga tegay horaa loo yidhi furunay lagu neceb layska kaa reeb fula kaarow lagu rookey run iyo been lama kala saari karo aakhir sabanna waa lagu jiraa marka walaal waxa weeyaan dadkayadii Soomaaliland markaan dhibaatadayadii ula tagno ama wasiir ha noqdaan ama agaasimo guud ha noqdaan walaal nagama yeelayaano way nagu dagaalayaan xuseenow dad badan oo Soomaaliya iyo daafaha dunida ka daawanaya haddiiba ayagu yiraahdaan xuseen maanta waanu ka faala qaadanaa oo waxbarashadiisa naga bixina wax ma baranaysaa walaal horta waxbarashada waxaaba igaga sii daranba hoygii aan seexanayay ayaa walaal lugooyadeedii ay leedahay waayo maanta dawladeedii ay calankeen dugsanayay haddii aan dawlado kala tago waxaa laga yaabaa inay wax ii taraan laakiinse dawladeedii Somaliland u dhashay intaasoo sanada maanta nin weyn oo waayo arag oo dhammaystiran oo xogtii nolosha og baan walaal waxa weeyaan haddii hoy la isiiyo walaal ilaahay mahadi weeyaan waxbarashaduna way ku xigi doontaa laakiinse waxa ugu qaalisan waa markaad meesha madaxaaga dhigto waxa kugu dhici kara roobab waxa kugu dhici kara dhaxamo waxa kugu dhici kara xanuun ma fahantay meel lagu ogaado ku tirsan tahay ina lagu dhigo ayaa walaal horta wanaagsan xuseen nimka iska dheeynimo qaan gaarabaad waan gartay haasaawe wali ma isku dayday walaal haasaawihii waxaan isku dayi waayay oo aan gabadh guursan waayay adduunba ma hayo walaalo jeebadaydii baa maran jacaylkii iyo hamigii helay walaalo dhiirigelintii aan u hayay waxay iga noqotay warwar iyo dhibaato iyo maskaxdayda oo aan ka shaqaysiiyay in badan oo biraar iga soo baxday waqtigii iyo waayuhuna isku kay xiray waxa jira Mandela ku magac dheertahay maasooyin aad tirisay heeso aad tirisay bal heestii darbijiifta aad u tirisay bal dadweynaha xasuusi walaal heestani waa hees qeyro badan oo taabanaysa Soomaali oo dhan afka Soomaaliga ku hadasha waa hees matalaysa dadnimada iyo dadku waxay tihiin
afirka ubadkayga haloo gurmado afirka afarteeda dhinac waxaa ka baxayo olal ku shiday ehelkay ku xigay intay isku duubni keento ubadka dirbijiifka abaabul haloo sameeyo adduunka nafbay ku leeyihiine warxama darbiga aqalbay ku leeyihiine warxama ogaada ammaanadooda warxama caruurta gayga baahan adduunku ha soo dayaan waxaad inoogu xigsaa oo kale heesti kale inoogu xigsiin duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana mihelin dadaalabana ma arag toliyo xididii damqada dadkana ku malihii walaal waxaanu u hoydaa derbiga baahida dacalkayga taal ayaa hadda warsiga i baray darxumo badan baan qabaa dubkayga waxaa ku shidan dabku waayuhu isuudhay hal dooro mar baan lahaa damiir tagan baan lahaa inaan dadka caawiyon digitoor noqdo waan jeclaa waxsehelada kaamiya dantiyo waayahay xidhay duliga nolosheen ku jiro daadaydu markay tagaan dugusiga iyagoo qurxoon ayaan qudhadeeq mihelin farxadda wanka laadinaa waxaan gishadaa dirays maryaha duugiin qubtan duxiyo igaan macuno dugaag waxaan qaybsanaa hambada aadaadisaan barbaadaacuun u go'ay markay waayiin dabiibi qarbii dhaxamuhu dileen tufaankii qabowga daran barbaadadii soo rogmaday habeen dumayuu la tegay naftooda barbaa bedelay markay dunidii naceen aqoon-yahana maadirsan xallada derbi jiif ku yaal digriga culimada ugo daraalleenooguma hadlan dastuurkuna uuna gabay quraalkuna uuna degay dadweynaha uma bandhigo ciilkiyo dacaskaana dhibay waxaan calinyahow dushiyo daruurta ka soo lushan darxumo hoostaada tal lugiyo darandoor ku maray rag iyo dumar baanu nahay abaydin la diiriyo waxaan rabnaa dareen dareeliyo nolol haboon xuseen waxaa jiray gabay adugu aad noloshaada ka tirisay marunbaan doolar heliyoon daar cagaha gelin waan garanay gabayga waxa weeyaan gabaygu ninuu aabbihii deeriyo daayacaan ahaaye qaar kaloo ciyaarsiinayaa ana dibadda ii tuuriye markuu iduluu duudka hooyada iga dul furay kuwa carruurta uu jecel yahay anunbaa adiyadan u darane waxaan dib jir ahaadaba mar uunbaan doolal heliyoon daarta cagaha gelin inana hadday qurux leedahay oy qoortaa ka hillaacdo markaasaa aroos qaaya weyn leh loo qotobiyaaye markaasaa rasaas laga qubaa oo qarani maadaaye markaasay quriga qoyska noqotaaye caliqaawane waa derbijiif oo waa dib low dhagax lix jir baad moodaa wakhtiguna uu haraatiyey waa 12 jir cirkaan huwadaa dhulkana waan guladaa ugu dambayntii xuseen bulshaweynta Soomaaliyeed ee ku daawanaysa maxay tahay fariinta dalka uga diraysaa waxaan leeyahay ummadda Soomaalida afka Soomaaliga ku hadasha dunida caalamka joogto waxaan leeyahay walaalayaal annagu waxaanu nahay dad muslina oo laa ilaaha illa allah ku shahaadanaya hadii aad taqaaneen Xuseen Mandela inuu daroogiis ka cabi jiray anigu waxaan afayeen u ahay dhalinyarada derbijiifka hore aniga uu ahaa maanta laakiin hadafkaygu waxay ahayd inaan iska daayay daroogiskii maanta waxaan rajo rabaa inaan aniga maanta hadii Xuseen Mandela wax noqdo kuwa kalena ay wax noqon doonaan laakiin Xuseen Mandela oo daraysan
oo dawladdiisii wax u qaban weyday waxay noqonaysaa naaqus oo aqabada badan baa igu soo xariirsan marka lugooyada iyo taxadigu waa tu gaar oo maalin aan maanta hayn ba cid walba laga jaraya laakiin saacada wajal ayaan tala saarkiisa mar walba tala saaranaya ummadda islaamkana waxaan ka codsanayaa inay dar Allah isu caawiyo maxaydan tuqishiyo duqaadiyo iqlaayo dadkuna haddaba daawade haddii aad xuseen ku soo kordhinayso talo tusaale tilmaan ama adduun fadlan ugu soo hagaaji barnaamijka hiil walaal ama lambarada shaashada kaaga muuqda waqtigu was kaba socdaa